waxaa markii saddexaad dayactir lagu sameynaya guriga lagaga dhawaaqay Jamhuuriyadda Somaliland waxaana dhagaxdhigaasi ka soo qayb galay isla markaasina daahfuray maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ugu horeynba waxa goobtaasi ka hadlay isla markaasina sheegay in si toos ah loo dayactiri doono guriga lagaga dhawaaqay Jamhuuriyadda Somaliland maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad dhowr jeer baan halkan nimi madaxweynihii qaranka hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa keen wuu dhagax dhigay in la sameeyo waa lagu tala galay wasiirkii maaliyadda ee hore Samsam Cabdi Aadan raali Allah ka ahaado ayadana waa keen waa ku dadaashay inuu halkan la sameeyo way noo suurtoobi weyd hindisaha waxa lahaa oo amarka nasiiyay madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo laakiin may suurtagal ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta isagaanu mahadnaqay وبعدين مدحوينها قرنك ما أنت تشوفه مسبح عبدي أو قلاضي لعقتنا اللي بحيو كدي مركان أور هني وزيرك ماليدي وأن آدي قوم هالنقين ما أنت هاوش عاصين بدن بيسوق عكفتيو اللي جود ده إنه هرجشوا لكن ما يهرجلين ما أنت أيان يهرج شيء ما أنت شركة دينا تشوفته وحنا قلنا ينقولي له دعوة نقولنا geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi runtii waxa maanta sharaf weyn oo ah in aynu bilaabayno dhismihii goobtan taariikhiga ah ee maaragtay qiimaha weyn ugu fadhida dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ah goobtii lagaga dhawaaqay gooni isutaaga Jamhuuriyadda Somaliland sida gudoomiyuhu sheegay goobtani waxay noqon doontaa goob taariikhi ah oo museum oo jiilba jiilka uu ka dambeeyo uu iman doono oo uu ku arki doono aasaartii halganka oo uu ku arki doono aasaartii nabadeynta iyo maaragtay walaaleynta iyo halkay odayaashii iyo garaadadii iyo salaadiintii iyo madax dhaqameedkii gobolada waqooyi halkay seexanayeen halkay wax ku cunayeen halkay ku shirayeen oo dhihiisa joogo waxa aanu hadii Ilaahay ka dhigno dhismuhu markuu dhamaado la sameyn doona in meel kasto ay joogaan wixii la soo heli karo aasaartii qadiimka hayda ka soo qayb qaadatay haday gaadiidka dadku lahaayeen u malayn maayo gaadiidkii tignaday wax laga helayo qoryihii kulay wax waa la helin nuur madoobe iyo wax waa laga soo helayaa laga soo helayaa in halkan la dhigo si kastaba ha ahaatee dayactirkan ay maanta dhagax dhigeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ayaa noqonaya kii saddexaad maadaama hore ay u dhagax dhigeen barasaabkii hore gobolka Togdheer madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirkii hawlaha guud Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan waxaanu noqonayaa dhagax dhigii saddexaad ee isla gurigan lagu sameeyo Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV guriga lagaga dhawaaqay Jamhuuriyadda Somaliland Burco.